لما ويسلاميهين مدح سكوتمت حويها جود أباس أحمد مع الفقيه صلاة عقاشة أقوي هندة هي لما قيمها كالدوان قرب الجرادة لما مرسال فودم هي قرب كهويكا بدوميها قرب كهويكا لبدا بحجينه هي حلي بلده لو جوبين ملوك هي دولة فدرالكا هي لما أقوي هندة صرفت لما وحدكم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أمريكا كوكبو ما أنت وحنا سقول لي مناسبة قيمة غاية ولا أو مناسبة دا لو بصير هدية أما هالدور هدية حسب يقدر وكم هي بس عبد الشكور بدأ قولت عنقل يوم مستر محمد آل قولت يا محمد شقنور اللهم حرص لنا هاي جنة لك ورابيو دوركي يددالكي يكرتدي يمانكي يعقلي يمسكحدي يدرداركي يكتغين إن ربها صارنا عقتا صارنا تاسي ومناسبة انت مناسبة وحي حبارسنتهاي هيكسي غلبا كل لحي طبنكا هيكسي غلبا كل لحي طبنكا اي حبارسنتهاي خطبتي waxaan ku soo koobayaa saddex waqti ku soo koobayaa door dhalinyarada guud ahaan wax qabadkii garabka dhalinyarada xisbiga daljir iyo maxay higsanayaan garabka dhalinyarada xisbiga daljir saddexda ayay inaha ayay khudbadii noqon doontaa doorka dhalinyarada waa door fara badan shan qodob ka soo qaadanaya doorka dhalinyarada waxaa ka mid ah nabadda ayay ka qayb qaataan nabadda ayay ka qayb qaataan ha noqdo heer degmo heer gobol heer qaran iyo heer caalamiba dhalinyarada guud ahaan nabadda ay ka qayb qaataan labo isdhexgalka bulshada ayay horseed u noqdaan horumarka shacabka ayay door weyn ku leeyihiin hal abuur waxtar leh ayay la yimaadaan xorriyaddana way dhaliyaan taasi waa door dhalinyarada yani loobin SYL dhalinyarada waa labo dhalinyaro qatii maanta dhalinyarada waa naga horreeyeen oo saan ku eega taariikhda SYL waxay ahaayeen dhalinyaro qiimo yaqaayo leh hal abuur leh naftooda u huray dalkooda iyo dantooda iyo diintooda shacabka Soomaaliyeedna xorriyad gaarsiiyey waxay ka taabta marka iyaga qalbadooda SYL waa dhalinyarada xorriyad ayay shacabka u horseedeen karaamadii shacabka Soomaaliyeed ayay dib u soo celiyeen xorriyadda aan maanta ku diirsanayna ayay gaarsiiyeen sababna u noqdeen inta waxaan ugu gudbiyaa marka wax qabadkii garabkii dhalinyarada ee xisbiga daljir kadib markii dhidibada loo aasaasay garabka dhalinyarada ee xisbiga daljir waxay ku tallaabsadeen wax qabad ballaaran kow waxaa la dhisay maamulku meel gaar ah 10 bishii 11aad 2014 waxaana loo gudbay maamul rasmi ah loo gudbay waxaa kaloo la dhisay maamulada degmooyinka garabka dhalinyarada xisbiga daljir bishii 9aad inta waxaa sii dheer waxaa degmooyinka gobolka banaadir laga soo kala xulay xildhibaano meteera degmooyinka waxaana halkaa lagu aasaasay baarlamaan uu yeesho garabka dhalinyarada 17 Agoosto 2015 labo waxaa la qabtay doorasho xor iyo xalaal ah 18 Agoosto 2015 maamulka maamul garab dhalinyarada xisbiga daljir oo kaashanaya xubno firfircoon garabka dhalinyarada waxaa kaloo la dhisay gabadha ayaa la dhisay 18 bishii waxaa la dhisay golaha baarlamaanka lagu dhawaaqay 19 xafladii caleemasaarka ayay ahayd maamulka garabka dhalinyarada waxaa kaloo ka mid ah waxqabadkiisii xisbiga daljir maamul garabka dhalinyarada soo kaashanaya xubno firfircoon garabka dhalinyarada ayaa waxay ka hawlgaleen jaamacadaha kala duwan ee gobolka banaadir halka oo ay ku guuleysteen inay ku soo dhiiriyaan xisbiga daljir xubno aad u fara badan oo aqoon-yahano way aragnimo xambaarsan iyo dabaqadaha kala duwan ee dhalinyarada waxqabadkii ugu dambeeyey ayaa waxa uu taabagalay 14 bishan ay ku jirno Febraayo 2016 oo ay fuliyeen garabka dhalinyarada halka oo xisbiga daljir ku soo biiray 50 xubnood oo isugu jira takhaatiir iyo aqoon-yahano haddaan guud galay higsiga maxaa higsanayna marka haddaan dhalinyarada nahay maxaa higsanaa
يكسر واحد يكسر سما وياهي هذا حوجها خربيو إنه يبدل كوابد كل لحية طبعا كأنه يرسل بوحدة ولا يقطع أو عليهن كلام إن لهلا نليرو بالعسل أو قفصا كرتها إن إذا لم تلقطو نليرو دارين ودنيا لهم برسن إن إذا نليرو حقيقيا سامي كل يوم هنان كدور النمو نليرو إن تهاي أنتي مانتا يتمبرين تنتبه waxaan doonayaa inaan wax yar xuso qarintu markay garab reer gaar ahaan markay dadaalayeen waa laga soo shakeeyay haliyadii marka ama hal doorkii dhalinyarada waxa ka mid ah horteed ka muuqda Axmed Salaad ka muuqda ma sha Allah Axmed Salaad Farax min Suhayl Ahmed Yaasiin oo ahaa gudoomiyihii Marusooyin oo ahaa gudoomiyihii hore garabka dhalinyarada Marusooyin Ali Ahmed Salaad oo ahaa gudoomiyihii guddiga qabanqaabada ياسين أربعة ومهدنا يا دور يكالي لحالة أي كقاتين أنت وحسيدا مسكات جاري وين غيرنا أنت كتجي هالدور كوي فربديه مسكوي كرام أنت كتجي كرام القرآن سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته